xiisadda ka dhex wadamada Itoobiya iyo Masar ayaa halkii ugu xumeyd gaadhay kadib markii Itoobiya ay diiday gebi ahaanba inay joojiso biyo buuxinta ay ku hayso dhaamka halkaasi ay ka binaysay oo ahaa ka isagu khilaaf ka dhaliyay. wasiirka amuraha dibadda ee dalkaasi Masar Saamix Shukri ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inay Masar wargelisay qaramada midoobay isla markaana ay u sheegtay in haddii ay qaramada midoobay cadaadis ku saari weydo dalkaasi Itoobiya oo Itoobiya ay jooji weydo gebi ahaanba biyo buuxinta ay ku wada dhaamka Masar ay fasax u haysato tallaabada ay qaadi doonto, taasi oo muuqatay inuu ku hanjabayo tallaabo militari oo Masaaridu ay ka qaadaan dhaamka ay Itoobiya gacanta ku hayso. dhanka kalena dhigiisa dalkaasi Itoobiya ayaa isaguna warbaahinta u sheegay inaan Itoobiya dhig jalaq u siin doonin baaqyada ka imanaya Qaahira oo ay ugu tala gashay Itoobiya in ay buuxinteeda wadato xilligan uu sheegay in la filayo inuu webiga biyihiisu ay aad u bataan maadaama ay tahay uu yahay xilligii dayrta oo bilaha August iyo July oo ay rabaan inay biyaha xidhaan isla markaana ay gebi ahaanba buuxiyaan dhaamkaasi. waxa uu sheegay wasiirka amuraha dibadda in ay tani ahay mid ciyaara maadaama Itoobiya ay mashruucan ay iyadu ku bixisay lacag gaadhaysa $5 bilyan iyo weliba kharash kale oo saayida oo ay rabto inay uga faa'iideyso muwaadiniinteeda iyagoo shaqo la'aanta baahsan ay haysato. Mareykanka ayaa loogu baaqay inuu soo nooleeyo wadahadalladii uu ku dhexdhexaadinayay wadamada Itoobiya iyo dalkaasi Masar isla markaana uu boorka uga jafo si aanay xaaladdu u noqonin mid faraha ka baxda oo uu bilaamo dagaal lagu hoobtay. Masar ayaa dhankeeda uu ka muuqdaa diyaargarow weyni waayo waxa ay heegan gelisay ciidamadeeda cirka oo ay doonayso in haddii Itoobiya ay sii wado maalmaha soo socda inay tallaabo militari qaado, balse wasiirka amuraha dibadda ee dalkaasi Itoobiya iyo wasaaradda gaashaandhigga ee isla dalkaasi ayaa iyaga laftoodu war ay soo saareen oo uu daabacay wargeyska Ethiopian Herald waxa ay ku sheegeen inaanay taasi ahayn mid marnaba suuro gelisay in Itoobiya u hoggaansato qorshaha ay dabada ka wado Qaahira oo aanay marnaba joojin doonin xitaa haddii uu waddankaasi soo labeeyo dalka kale ee iyaga uu kala dhexeeyo iyagana khilaafku oo ah Suudaan. balse Suudaaniyiinta ayaa moodaa maalmihii u dambeeyey inay rabeen inay door dhexdhexaadnimo ka qaataan arrintani inkastoo aanay dheg jalaq u siin isla markaana ay sheegtay ay gebi ahaanba guddidii Masaaridu ay sheegeen in ay u ogolaato Itoobiya inay lana wadaan habsami u socodka howlaha dhaam, taasi oo Itoobiya sheegtay inay tahay faragelin oo aanay marnaba yeelin. Suxufi Sinyoore, wararka Odweyne Media, Hargeysa. xiisadda ka dhex wadamada Itoobiya iyo Masar ayaa halkii ugu xumeyd gaadhay kadib markii Itoobiya ay diiday gebi ahaanba inay joojiso biyo buuxinta ay